maanta waxaan idin xasuusinaya oo is xasuusinaya xabaasha marka maanta waxaynu leenahay xabaasha iyo xasuus nabiga sallallahu alayhi wa sallam maalin buu wuxuu arkay dad meel ku urursan markaasuu nabiga sallallahu alayhi wa sallam ku cararay markuu ku cararay saxaabiga marka xadiidka warinayay wuxuu leeyahay waan daba galay nabiga sallallahu alayhi wa sallam markaasuu soo cararo dadkiibuu sidaa u kala baneeyo wuxuu arkay in xabaal loo qodayo xabaashii markuu nabigu sidaa u arkay ayuu mararo dilaaco ilma ka timi oo adkaysan kari waayay lugihii uu ku taagnaa ayaa la gariirayo jilbaha ayuu ku dhuftay sallallahu alayhi wa sallam madaxuu hoos u dhigay garka ayuu halka kashka uu saaray markaasuu ilmeeyey markaas dadkii meesha joogayna la ilmeeyey nabiga sallallahu alayhi wa sallam ilmadii isha ka socotay ayaa garkii nabigii weynaa qoysay sallallahu alayhi wa sallam xabaashu sidaa u eegay markaasuu walaalaya limithli hada fa'mal tanoo kale u shaqaysta u dadaala yacni maalinta iilka lagu gelinayo ee xabaashaa lagu gelinayo maalintaa u shaqayso xabaashu walaalayaa waa meel aad iyo aad iyo aad u dhib badan ilaahu kaa badbaadiye mooyaane qofku bini aadamkii markuu dhinto oo iilka sidaa loo geliyo oo qofka qiblada loo jeediyo markaasaa la odhanayaa addaba war ninkii iilka dhigayow ka soo bax ninkii iilka dhigayow ka soo bax waxaana weeye qofkii axadka ugu dhowaa uguna cilmi badnaa ayaa iilka ku dhigaya markaasaa halkaa inta jaajuur lagu miiso ayaa halkaana inta baciiddii meeshii lagu rido ayaa halkaa laaga dhaqaaqay markaasaa nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam tallaabada qofka ugu dambeeya tallaabadiisa ayaad maqlaysaa markuu kaa sii dhaqaaqo uu kaa tago ayaa laba malag baa imanaya labadaa malag waxaa la yidhaahdaa munkar wa nakiir kama fii xadiis saxiix al-albani munkar wa nakiir waxaa la yidhi indhahoodu waa buluug waxaa la yidhi ilka waaweyn ayay leeyihiin ibnuulqayim wuxuu yidhi bini aadan cadaab labadaasaa ugu filan yani hadduu bini aadan dooyin laga bajiyo ama la cadibo araggay arkayaan labadaa malag ayaa ugu filan buu leey ibnuulqayim labadaa malag markaa waxay doonayaan inay ku kiciyaan oo su'aala lagu weydiiyo markaasay madaxa kaaga bilaabayaan oo xagga mijaha kaaga imanayaan oo xagga midig bay kaaga imanayaan oo xagga bidix bay kaaga imanayaan markaasaa salaadaadii iyo sadaqadaadii iyo siyaamkaadii iyo alamr bilmacruufkii iyo silati raximkii wixii oo dhan baa kuu soo halgamaya marka midaasuu ohanaya may xaggayga ka soo geli maysid ninkani wuu tukan jiray xaggay ka iman maysid ninkani wuu soomi jiray dhinacayga ka soo mari maysid gabadhani hooyadeed bay u fiicneen waalidkeed bay u fiicneen waalidkiiba marka raximka iyo silati raxim baa ku difaacaysa aakhirka marka haddii u fiirsa dhinaca kalena marka qofki haddaanu salaad la imanin oo aan sadaqa la imanin oo aanu zaka la imanin oo aanu silati raxim la imanin oo waalidka aanu fiicnayn oo qiraa'addii qur'aanka aanu gacanta ku haynin dee cid ku ilaalinaysa iyo cid ku difaacaysa iyo cid security ku noqonaysa iyo cid ma jirto marka waa lagaa nexinaya argagax ayaa ku gelaya markaasaa jubdoo lagu soo kicinaya markaasaa lagu oranaya
labadii malag ayaad arkaysa. waayo marka ay halkan labada malag imanayaan ma soo jeedin, waayo naftii baa lagaa saaray, naftii baa lagu soo celinayaa. markaasii qof hurdo ka soo kacay oo laga nixiyey ayaad noqonaysa. labadii malag baad arkaysa oo aragooda aad ka argagaxaysa, aad ka baqaysa. labadii baa ka odhanaya man rabbuk, ilaahaagu waa ayo. dee nin baad hayd ilaahay ku xidhnaa oo ilaahay ka cabsan jiray oo soomay oo salaaday oo markaad keligaa aad tahay ilaahay ka cabsan jiray, dee waad la soo boodaysa. rabbi allah baad leedahay, waa lagaa saxaya. su-aasha labaad, maa diinuk, diintaadu waa maxay? haddii aad ahayd marka gabadh marwo ah oo ilaahay ka cabsan jirtay oo xijaabka xidhan jirtay oo aan dadka xaman jirin oo qur-aankeeda taqaanay oo ninkeeda ateeci jirtay oo carruurteeda iyo qoyskeeda iyo gurigeeda ku mashquul ahayd, dee waxaa odhanaysaa diini alislaam, diintaydu dee waa alislaam. waa baase baa lagu odhanaya. su-aal baa ku xigta man nabiyuk, nebigu waa ayo? haddaad ahayd inaan dhallinyaro ah oo salaad sax ah oo jimcuhu aanu dhaafin oo xalaqaatilcilmigu aanay dhaafin oo ilaahay ka cabsan jiray oo shahawadiisa xakamo geliyey oo isha hoos u dejin jiray, dee nebigu waa lagu hawl yeelanayaayo waxaad xasuusanaysaa nebigii. saad odhanaysaa dee nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam. iyo adagta taasi saa lagu odhanayaa sax. saa la odhanayaa nebi maxamed ah miyaad aragtay, miyaad la joogtay, miyaad salaantay, miya kulanteen? waa maya. marka cagaad ku ogato in nebi maxamed uu yahay. haddii marka inan aad tahay saalixada oo xijaab iyo xishmad ku nool oo ilaahay ka cabsata oo jilbaabkeedu uu weyn yahay oo uu yahay niqaabkeedu uu haagsan yahay oo maryaheedu uu inada xishood leh oo aan inama la sheekaysanin oo salaad saxa, dee waxaad leedahay walaalo qur-aanka ayaana nagu sheegay wamaa muxamed abaa axadi min rijaalikum baa la yidhi. waxaa qur-aankaa lagu sheegay suurata aali cimraan baa lagu sheegay, suurat alaxzaab baa lagu sheegay, suurado fara badan baa lagu sheegay, in suurat alisraa baa lagu sheegay subxaana aladii asraa bicabdihi. ee qur-aan ka buuxa sax. haddii laakiin aad qof ilaahay aan ka cabsan jirin aan ahay oo kuwa ina ilaahay waa muslim baanu nahay, diinka miyaad naga xigtaa? halkaasu ku jira, halkan ka buuxa iimaan. waa lagu kicinaya, awood argagaxsan baa markaa soo kacay. man rabbuk baa luu yidhi. waan qayili jiray iyo dad baan xaman jiray iyo siyaasad baan ku dhex jiray iyo reer hebel baan abtari jiray iyo reerkayga u dagaalami jiray iyo kaa saari mayso. qofku markaa wuxuu odhanaya waxaan dadka dee ma qowqowgi. saa lagu leeyahay okay. ta ku xigta maa diinuk, diintaadu waa maxay? hadday gabar